aad baad mahadsantahay ninkan dhalinyarada oo kamida ardayda Soomaaliyeed dalkan Turkiga wax ku barta bal isna wuxuu ku dari karo bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantiin anigu horta nin dhalinyaro ah intii aan ka wada yarahay khibrad badan ma leeyahay laakiin dareenka ka wada hadlaysa anigu qof Soomaali ah oo daaqinaya oo taabanaya marka aniguna waxaan damcay inaan shucuurtayda ka dhibto laba arrimood oo meesha yaala maagtaa arrinta ah dawlad dadka qurbo joogta Soomaaliya inay inta dalka ku noqdaan ay wax ka geystaan iyo arrin kale oo ah dadkii markay ku noqdaan dawladdu waxay uga baahnayeen ma ka helayaan dawladdu ma jahaynaysaa dadkan marka kooda waxaan ka hadlayaa arrinta ah dawladdu ma jahaynaysaa dadkan ma jahaynaysaa kow dawladda aan wax ka sugayno oo ma taqaana Soomaaliyeed maaha dawladaha caalamka dadka jiheeyo ma taqaana policy-ga dadka u soo socdo jahayn kara ma aha dawladda wax ku sugaysaan ma aha ma taqaana dawlad waa dawlad ciidankeedii registeraysan la idinkuna registration ba ka sugaysaan ma waa dawlad waxba qabsan la waxay rabaa qisay yar inay la taabto aniga xogaa shucuurtooda ka xasantaa laga yaraalaha waxa rabaa qisay yar inay la taabto waxa jira dhaawac badan baa la keenaa dalka Turkiga dhaawac la keeno waxa jira dhaawacyo aad u liita mesela labaas wax ka hor waxa la keenay yar ay halka xabad uga dhacday xagee laga keenay dhaawac wax yar waa iniga ku taabanaya qisadiisa waa nin dhalinyaro ah oo ma taqaana awoodiisu aad u yarahay wuxuu ahaa staafka khaaska ah ee madaxweynaha Soomaaliya faanteen muddo badan baa al-shabaab soo wacday waa u dhaarteen xaafadda hore waa ka soo toosi jiray anu wax aqoon uma lahayn laakiin afkiisu waxyaalaha soo dhan iga sheegay ninkaas maalmaha ka mid ah telefoonka uu dansan jiray subax markuu soo kacayo waxa soo wacay isagoo telefoonka dansan taliyihiisa ciidanka oo ma taqaana staafka madaxweynaha khaaska ah waxa la yiri shaqadii baa aalasayba madaxweynuhu tago duul rabay soo ka aalasay isla subaxa aalasay salaada subax marka laga soo baxay gurigiisa markuu ka soo baxay banaanka marayo uu soo socdo laba wiil oo yar shabaab ka daba timid madaxaas halkaas loo dhuftay xabadda markii lagu dhuftay al-shabaab way dul yimaadeen waa la rogrogay wax nuuxnuuxtaan laga waayay meed ahaan bay uga tageen meed ahaan markay uga tageen nin kala dilaya weeye waa staafkii khaaska ah madaxweynaha Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya wax laga hadlay waa xubin aad u muhiim ah waa qofkii madaxweynaha wadanka ugu sareeyay noloshiisa dhan safgareynaya ilaalinaya qofka la dilay den wuxuu galay koomo isbitaal magaalada Muqdisho ku yaala baa la seexiyay wuxuu u baahnaa dalka dibadiisa in loo soo qaado halis xun baa ku dhacday waa xubin qaali ah den dawladdu waxa qof madaxweynuhu qof buu u diray u xil saaray waxa la yiri ninkan dibadda bal waxa dalka wax looga maqan karo dibadda ha loo diro arrintiisu way isdaba jiidantay arrinta ugu xun oo aad uga damqaday waxa weeye dawladda Turkiga waxa laga codsadaa safaaradda inay qaado oo Turkiga u geyso su'aasha jawaabta la siiyay waxay tahay waxa lagu yiri hadda kaliya kuma qaadi karno markuu dhaawac kaliya yimaado qarax kala dhaco oo kugu darayna ku qaadayna waa qof sakaraada fiiri madaxweynaha qofkii garabkiisa taagnaa weeye 11 months wuxuu ku jiray isbitaal marka waxa leedahay dawladda sida u tabarta daran askarteediiba wuxuu qaban lahaa qurbo joog ma registerin karto hatta askari ma uu qofkii gaarka ahaa al-akhir yaan waxba in ku daalin inta hoos uu ka qalala aniga waxay migilin Soomaali aniga waxay migilin Soomaali waa qof Soomaaliyeed oo ka danqanaya qofkaas markii dhaawac loo ogolaaday waxa lagu soo qaaday baarlamaanka markaa deertaan weeraray baa lagu soo daray waay awal waxa loo balan qaaday markuu dhaawac dhaco in la soo qaadiyo qof jiran oo ah qof dhan oo dhaawac la soo qaaday qof bilaadan lagu ma soo darin isagoo qof bilaadan lagu soo darin isbitaalka la keenay oo garanaysan Turkidu ma yaqaanaan luqadda Ingiriiska intaan waa ka meyd isbitaalka waa la seexiyay meel baa la seexiyay naarsinka wuxuu keentay quraacda subaxii way tagtay muu hadlin way laabatay qadadii bay keentay way taalaa way yaabtay wax tiri kuma helin cashadii bay keentay intaa waxa ma soconin qof bilaadan lagu soo daray den ma qan waxna markii soo siiyay wala soo wax lagu yiri turjumay qofkan
la hadlay wuxuu yidhi niyo waa isfahmi lahayn waxna ma cuna anigana inta quusan sakaraadka ah isbitaalkii buu ii sheegay aniga u sheegay wuxuu ka yidhi ninkan waa baralis dan dadkii dhan isku ooyey waxba uma qaban karaan qofkii dhan mas-uuliyad ma jiro yaa mas-uuliyad ku sugaysaan marka idinka qofkii mas-uuliyad ku sugaysaan igaraal ahaada waxyar baan ku darayaa soomaaliya mas-uuliyaddeeda inaad qofka sugtaan maaha dadka professorska dadka wax bartay marka qurba joogta laba loo kala qaada labay u kala baxdaa qurba joogta dad aan waxa baran oo ceyr qaata iyo dad wax bartay dadka wax bartay waxaan dhihi lahaa fiirinina $10,000 a qaadataan $5,000 a qaadataan waxaa kaaga miinsan $1,000 $500 a Soomaali ka qaadatay jaamacad ka dhigtay isbitaal ka shaqaysid ha ka dhiginina inaad madax u doonataan dalka inaad idinka wax geysaan idinkaga baahan ma u baahna inaad idinka wax ka doonataan